deeqdan oo isugu jirta cunnada qutul-duruuriga qaybeeda kala duwan isla markaana muwaadiniin Soomaaliyeed ay soo dhibeen ayaa la gaarsiiyay saldhigga booliiska degmada Gaalkacyo halkaas ay ku xiran yihiin maxaabiis fara badan. xalimo jaamac cilmi xariimo qarad oo iyadu wakiil ka ahayd dadka deeqdan soo dhibay ayaana warbaahinta qaranka sharaxaad ka siisay deeqdan iyo waxa loogu talagalay waxa ay xustay inay tahay mid loogu talagalay in la siiyo maxaabiista ku xiran saldhigga magaalada Gaalkacyo inta lagu gooyi jiro bisha barakeysan ee Ramadaan. markii xigo magacayga waa xalimo jaamac cilmi xalimo qarad waxaan nagu soo fool leh bisha Ramadaanka ah. bisha Ramadaanka waa ogsoontihiin waa bil khayr badan oo loo baahan yahay sadaqaadka in la bixiyo lana caawiyo dadka u dhibaataysan. maanta alxamdulillah waxaan soo gaaray saldhigga gobolka Mudug ee Gaalkacyo. xogaaga raashinka ayaa waxa soo dhibay walaalo dibadda jiro sida galmudug development iyo walaalkeen ah oo dibadda joogo oo la yiraahdo Asad ayaa xogaa lacag soo gaarsiiyay. lacagtii waxaan ku soo gaday raashinkan waxaan loogu talagalay dadka maxaabiista halkan ku jiro. waxaan baaq dheer aan u jeedinayaa walaalaha muxsiniinta ah u dhashay gobolkan Mudug inay saacidaan dadka dhibaataysan. taliyaha saldhigga booliiska degmada Gaalkacyo laba xidigle cali xirsi sahal oo isagu deeqdani la wareegay ayaa kaga mahad celiyay muwaadiniinta Soomaaliyeed ee soo dhibay isagoo dhanka kalena codsaday in la caawiyo dadka danyarta ee ku nool magaalada Gaalkacyo. aad ayaa u mahadsantahay xalimo qarad runtii ilaahay fadligiis ilaahay baa mahad iskale. maanta waxaan soo gaartay deeqdii ugu horeysay naga soo gaartay walaalaha dalii dibad jooga in soo gaarsiisay walaasheen xalimo qarad. aad ayaa u mahadsantahay leenahay baahideena waa ka soo jawaabtay. waxaan leenahay walaalaha Soomaaliyeed gaar ahaan u dhashay galmudug gaar ahaan degmada Gaalkacyo in ay dadka masaakiinta ama ku nool daafaha magaaladeeda ama ku nool maxaabiista ama saldhigga ciidanka ah inay kaalmeeyaan oo dhan walba naga kaalmeeyaan. runtii ciidanka waxaan dhihi karnaa dadka kaliya ay ku baxdo sadaqadu ay aadka aan leenahay dadka bulshada u shaqeynaya ayuu guryahoodii iyo xaasaskoodii iyo hooyooyinkoodii ka soo tagay una soo tagay inay bulshada u shaqeeyaan kana laga yaabo inay ay baahi ka jirto guryaha ay ka soo tageen inay haddana u shaqeeyaan dadkii shacabka ahaa ee deegaanka ku noolaa. marka waxaan leenahay sadaqadu waa ku baxdaa maxaabiistana waxa loo soo kordhiyo intaan in ka badan baan ka sugeynaa hadduu Ilaahay idmo. Cabdirasaaq Maxamed Axmed warbaahinta qaranka Soomaaliya Gaalkacyo.